shirkan aad u muhiim u yahay wuxuu muhiim u yahay sida xaamud iyo wasiir sabriin u sheegeen ku dhawaad sanad ka hor ayaa prime ministerka wasaaraha wuxuu sameeyay guddiga la yiraahdo guddiga siyaasadda loo leeyahay oo wasiirro badan ay ku jiraan guddiga sanad shaqo soo waday shaqada ugu wadan waxay ahayd in istaraatiijiyadii lagu gaari lahaa ajandada siyaasadda loo leeyahay lagu dhamayn lahaa siyaasadda loo leeyahay ajandadeeda saddex waa waddanka federalizationkiisa in la dhamaystiraa in dastuurka dib u eegistiisa la dhamaystiraa in election qof iyo cod ah la gaaraa 2020 saddexdaas shaqooyin badan laga soo qabtay waxaa muhiim ah inaad ogaataan annagu haddii aan nahay xukuumadda ama dawladdu madaxweynuhu farmaajo hogaamiyo waxaa naga go'an inaan ka shaqeyno waddankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray waxaa naga go'an waddanka inaan loo fiirin sida uu ahaan jiray ama sida uu yahay laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo mustaqbalka waddankan sida uu ahaan karo ciddii u sawiri lahaydna waa dadka halkan fadhiya sida waddankani uu ahaan karo waxay ku xiran tahay marka nidaamyo noocee ah ayaan yeelanaynaa waddankan inuu doorasho gaaro in qabyaaladda iyo qabiilka asxaab siyaasadeed lagu bedelo in qofku uu xisbi matalo ama siyaasad ama aaraa dadka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalka lagu hagaajinayo inuu matalo in qofka Soomaaliyeed uu ku khasban yahay oo madax noqonaya inay shacabku la xisaabtamaan mustaqbalka debatekii iyo doodii iyo ra'yi isweydaarsigii meeshaan aan ku samaynay 3 maalmood oo maanta u dambayso hay-adihii federaal iyo dowlad goboleed iyo hay-ado kaloo madax bannaan intii howlu ka khusaysana runtii waxaan qabaa in aad looga faa'iidaystay debateka noocaana oo ku saabsan mawduucyada aan ka hadlayna maalmahan alaabtan derbiga noogu dhegan wax badanoo ma dhammaan doonto saatani waa bilow runtii waxyaabaha u baahan waaye in marar badan in inta la isugu yimaado laga hadlo ra'yi laga ururiyo waxaan rabaa inaan dhammaantiin intiina ka soo qayb gashay idinkaga mahad celiyo mahad ballaaran waqtigiinna iyo effortka aad geliseen isu imaatinkan aqoonta iyo waayo aragnimada aad ku biiriseen oo aan hubo in laga faa'iidaysan doono haddii aan la yiraahdo